halkeen hadday ku noqono halkan uu inoo taagan yahay haddaan run server nidhaahno serverka dib u run gareeyo outputka inoo soo wada baxay sidaan u ahaa imageskaas aniga igu taagnaa xogo kale oo ka duwanaana meesha uu inooga soo baxaya marka haddii uu sawirkii inoo soo saaray oo ininka badan usii baahan waxaan idhi halkan umay tegi doonaa kadibna waxaan sheegi doonaa tusaale ahaan oo kale eventiska haddaan ku dhaha locationkooda ii sheeg hadda wuxuu ii sheegi doonaa locationka ka dhacaysa oo haddaan refresh sameeyo wuxuu ii sheegayaa eventigeena inuu ka dhacayo maxay harhab haddii kaloo tusaale ahaan u baahanahay iyadana inuu ii sheego small class samaystay kadibna waxaan idhi waxaad ii sheegi doontaa dateka uu dhacayo iyadana waxaan odhan jirnay eventiska markaan joogno waxaan u baahanay maxay date marka keliyaat waxaanu sheegi jirnay modelskeena kolomyadii inoo diyaarsanaa ayaynu halkan ku sheegi jirnay oo haddana datekiibuu inoo sheegay haddaynu doonayno inaynu ogaano cidda organize garaynaysa organizer baynu odhan jirnay waxaynu u sheegan jirnay xogahaynu u baahan oo dhan baynu yeedhi jirnay marka waxaan rabnaa bagekan haddaynu gujino in bage kale layna geeyo ay ku qoran tahay event detail marka si aynu samaysano horta waxaan odhan doonaa waxaad noo samayn doontaa halkan ay niman doonaa eventiskeena kadibna waxaan odhan doonaa waxaad noo samayn doontaa fayl cusub faylkaygana waxaad noogu bixin doontaa wuxuu noo hayn doonaa eventigayga detailkeedii macnihii xogtii oo faahfaahsan ayuu noo hayn doonaa waxaan u bixinay event detail kadibna waxaan idhi wuxuu noqonayaa html file ayuu inoo noqon doonaa html failkeennan sideenii hore isagana waxaynu ku bilaaban doonaa blog content baynu odhan doonaa blog content baan odhan doonaa sidiisii hore xogta laysoo bandhigi doono kadibna halkan dambena waxaan odhan doonaa waxaad noo simanaysaa maxay nd blog waxaa laynoo xidhayaa maxay bloggeennii baa laynoo xidhi jiray intaa haddayn samayno tasti ku samayno in eegno still hadda wax fariina heli mayno si aynu fariin u helno viewskeennii tegi doonaa kadibna waxaan odhan doonaa waxaad noo samayn doontaa function cusub kan hore waan iskaga iman doonaa linekii hore aan dib ugu noqon doonaa dif kadibna waxaan idhi waxaad ii heli doontaa kan wuxuu iisoo heli doonaa event detail buu iisoo heli doonaa event detail markuu inoo soo helo functionkeenu wuxuu diri jiray maxay request codsi buu diri jiray kadibna waxaan odhan jirnay sida caadiga return noo samee waxbaad noo soo celin doontaa waxaad soo celin doontaana wuxuu noqonayaa waxaa noogu jira faylkayaga requestigayaga kow kadibna gaar ahaan waxaad noo geli doontaa folderkayaga la idhaahdo maxay eventis kadibna waxaad noo soo akhriyi doontaa faylkan ula baxnay maxay event detail html event detail html magacaasaan ku save garaysanay intaan haddayn save garaysano still umaynaan samayn url urlku wuxuu ahaan jiray halkuu ka gudbayo bagekeenu uu marayo ayaan sheegi jirnay marka waxaan idhi tusaale ahaan oo kale eventigeena si aynu iskaga dhamaystirno koodhkiisa functionkaygan markaa shaqaan u diri doonaa waxaan odhan doonaa variable yar ii samee event la yidhaahdo eventigayguna wuxuu soo heli doonaa get object buu soo heli doonaa or wuxuu soo heli doonaa 404 wax kale maaha faylka macnihii haddii la waayo waxay leenahay eventigeenu wuxuu samayn doonaa wuxuu soo heli doonaa get wuxuu heli doonaa maxay underscore object buu soo heli doonaa haddii uu object waayana wuxuu heli doonaa waxa la yidhaahdo maxay 404 wax kale maaha faylka haddii la waayo aynu heli weyne macnaheedu waxay tahay not found soo saa maha fayl marka weyne waxaan odhan jirnay waa not found faylkaa lama helayo marka 404 wuxuu inoo ogolaanayaa faylkeennan inaynaan heli karayn kadibna waxaan leenahay waxaad noogu yeedhi doontaa eventigaygana id baad u samayn doontaa idguna wuxuu la macno noqon doonaa maxay event id waxaan leenahay markaa waxaad noo soo heli doontaa waxaa noogu jira eventis baad noo soo heli doontaa eventiska waxaa noogu jira marka soo heshidna waxaan odhan doonaa waxaad inoo samayn doontaa idgayguna wuxuu la mid noqon doonaa waxaan idhi maxay event underscore id kadibna halkeena sare requestigu inoogu qorsiyay ama codsigo ayaan odhan doonaa waxaad noo raadin doontaa event id baad noo raadinaysaa waxaad noo raadin doontaa variablekayga la yidhaahdo maxay event id ayaad noo helaysaa kadibna halkan wuxuu nagu haystaa error kadibna haddaan halkan istaagno oon halkan idhaahdo click samee wuxuu igu soo dari doonaa from django waxaad ii soo heli doontaa maxay import waxaa la soo heli doonaa maxay get object ama maxay 404 ayuu soo helayaa markaa kanaan iska keli garaysanayaa intan haddaan taabto halkan sare wuxuu inoogu soo daray maxay import waxaa la soo helayaa maxay get object ama maxay 404 baa laynoo soo helayaa intan haddaan samayno wayn save garaysanay xogteeni saasay inoogu jirtaa
intani hadday inoogu jirto mar kale waxaan odhan karnaa event-gayga waxaana looga baahan yahay variable-keeni bayn samaysan doonaa ama dictionary-geeniyo event-gan xagga hore ayn kusoo qeexnay wuxuu la macno noqon doonaa maxay event-geenna halka dambe ayn ku samaysanayno marka intani waa dictionary-ga samaysan jirnay ama context-giyo waxaan odhan doonaa waxaad noo samaysaa event single quote kan hore markaa wuxuu ka imanayaa variable kan hore samaystay event la yiraahdo event-gaygu wuxuu la macneeyay baan idhi isla event-gaygu macnaheedu wuxuu la macno noqon doonaa event-ga hore ee halkan iigu jira haddii variable-ladeeda aan isku mid ka dhigana waxaan odhan karaa eventis kana waxaan ka dhigan doonaa eventis ayaan ka dhigan karaa same macnihii kelmadiskooda macnaha halkan hore haddaad event ka soo dhigatay halkanna eventis baad ka dhigan kartaa waa isku wada mid wax saameyna ma yeelanayo intan haddayn samayno save samayno waxaan odhan doonaa mar labaad waxaadna geyn doontaa page-kayga la yidhaahdo maxay event detail page kadibna halkan sare horta waxaan odhan doonaa waxaanu soo dhexlaynaayoon u baahan nahay extendis bayn odhan jirnay waxaad noo soo dhexli doontaa failkeena la yidhaahdo maxay base.html waxaa laynoo soo dhexlayaa ama laynoo soo qaadaya laynoo soo xiganayaa failkeena nidhi waxaa la yidhahdaa maxay base baa la yidhahdaa basekeena markaynu ka nimaadno koodhkeenu iska koobayay just designkii cardkaan iska isticmaali doonaa waxaan samaystay marka hore hal row bayn samaysanay rowgeena markay samayneen waxaad noo samaynaysaa column 12 macnihii shaashadoodan qabsan doona kadibna waxaan idhi waxaad noo samayn doontaa maxay card baad noo samaynaysaa bas intaasaynu yeedhanay marka waxaan odhan doonaa row noogu yeedh kadibna column noo samee 12 kadibna xogta soo baxaysa ayaan sheegayaa row baan samaystay rowgeygii markaan samaystayna mar labaad waxaan samaystay column baan samaystay columnkayga waxaan idhi medium device hadduu yahay wuxuu noqon doonaa maxay 12 buu ku fadhiisanayaa dan waxaan odhan jirnay waxaan u baahanay maxay card baynu u baahannahay marka card si aynu ugu yeedhno key extensionkaas kaga yeedhan doonaa card image baan odhan karaa ama card all marka card all haddaan idhaahdo cardkaygu wuxuu yeedhan doonaa maxay marka ugu horeysa header kadibna waxaan odhan doonaa headerkaygu wuxuu la mid noqon doonaa wixii igu jiray eventiskayga oo lasoo heli doono maxay titlekoodi waxaan idhi wuxuu la macno noqon doonaa eventiskeena wixii noogu jiro lasoo helaya maxay titlekoodii intan haddayn samayno pagekan url-kiisu wuxuu noo noqon doonaa mid ka duwan kii hore kuwan kale hadhow bayn gelgelin doonaa laakiin url-keena haddaynu eegno isyo url-skeeni waa kuwan waxaan odhan doonaa waxaad soo heli doontaa integer waxaad ku heli doontaa maxay event id baad ku soo heli doontaa kadibna waxaan odhan doonaa event detailkanu soo samaysanay ee functionkaygu ahaa magac baad noogu bixin doontaa magaciisa waxaad odhan doontaa maxay event detail intan haddayn samaysano url-ayn haysanin markaa kii eventiskan tegi doonaa halkan aynu kooma odhan doonaa baas cusub bayn samaysanaynaa baaskeena markii hore waxaynu odhan jirnay waa meel maran soo saamahayn hadda waxaynu odhan doonaa meel maran noqon maaye wuxuu noo noqon doonaa maxay taag bay furan doonaa taaggeena waxaan sheegi doonaa shaygan laynoo baadhaya inuu yahay maxay integerku wax kale maaha xogta la raadinaya dee waa tiro id-gu soo saama marka id-geenuna wuxuu la mid noqon doonaa kii horey soo qeexnayn wuxuu noqonayaa maxay event id buu noqonayaa intan markaan sheegno kadibna waxaan odhan doonaa halkan taaggan way iskaga bixi doonaa saasaan uga baxnaa intan markaan samayno function baynu isticmaali jirnay functionkeena waxaan usoo bixinay haddaynu xasuusano event detail baynu nidhi functionkan wuxuu inooga imanayaa qaybteena viewska oo waa ka halkan inoogu qoran waa ka halkan igu qoran ayaan halkan uga yeedhanayaa bas intan markaan sameeyo mar labaad maxaynu odhan jirnay name baynu u bixin jirnay magaciisana waxaan odhan doonaa event detail noogu bixi intaa noogu bixi marka kan maadaama la garanayn halkan aynu odhan doonaa comma kadibna waxaan ku darsan doonaa inuu yahay maxay event detail intan haddayn save garaysano shaygeena waxaan rabnaa inaynu kusoo helo id in id laynoogu yeedho marka indexkeena haddaynu eegno halkan hore linkii baad ka wada saarteen soo ma xasuusano kan haddayn halkan nimaadno halkan waxaan ku sheegi karaa ama indexkayga waxaan ku qeexi karaa linkigaan u baahanahay si aan u sheegana waxaan odhanayaa un simple sure indexkeenu waa kan halkan ugu horreysay waxaa inoogu jiray url-keenu wuxuu la mid yahay ka la yidhaahdo maxay event detail wuxuu wax ku baadhayaana waxa weeye maxay event id ayuu wax inoogu baadhi doonaa marka href-keenii hore umay tegi doonaa kadibna id-gan ayaan ku darsanaynaa waxaan leenahay 2% kadibna waxaan leenahay waxaad noo samayn doontaa maxay url baad noo samaynaysaa url-kani wax kale maaha
wuxuu noqonayaa xogteena halka laga keenayo kadibna event detail baa url-kayga la yidhaahdaa namekan u bixiyay wuxuu ahaa event detail kadibna waxaan odhan doonaa event detail markaad noo hesho eventigaygu wuxuu yeelan doonaa waxa la yidhaahdo maxay .id eventigaygu wuxuu yeelan doonaa maxay id ayuu inoo yeelan doonaa eventigeena wuxuu inoo yeelan doonaa maxay id buu inoo yeelan doonaa marka shayadeena waxaa lagu raadinayaa macnihii id haddii halkani event ay ii tahay halkaygan sarena waynu eegaynaa halkani haddii event sii tahay halkani eventis bay noqon doontaa haddii halkani event keliya tahayna event bay noo noqon doontaa intan haddayn tastigarayno think wax error naguma haysto okay pageskeeni kale ayn tagno markaa refreshment samaynay tijaabi bayn nidhi marka xogtan haddaan ku dhufto oon click sameeyo halkee laygey sir event detailka wax kale maaha kan markaynu taabano ileen anchor tag buu ku jira soo saamahayn haddaynu gujinno in taabano wuxuuna geynayaa maxay page kaluu ina geynayaa pageka kale maxaa ku qoran halkan Somali code soo saama kan kale haddaan dib ugu noqdaan idhaahdo kan labaad taabana halka sare maxaa ku qoran Python coding sawirada haddaan soo gelinaynana waa sidii hore wax badan isbedeli ma jiro waxaan iman doonaa un event detailkeena kadibna waxaan odhan doonaa halkii sawirku nooga soo bixi jiray sawirkaygan damba nooga soo saar halkan sawirkii nooga soo bixi jiray waxaynu ka saaran doonaa maxay sawirkeena waxaan odhan doonaa wuxuu la mid yahay eventis dot photo la mid noqon doonaa gaar ahaan url-keeda intaan haddaynu eegno aan refresh sameeyo sawirkaygu waa inuu isbedelo sawirkaygu isbedelay marka inuu ugu yar yaraadaad moodaa positionku haysto css-ka waxaan ka saari doonaa un qaybtan 20ka riima intaan haddaan ka saaro kaadhka big buu noqon doonaa meeshii oo dhan buu qabsaday waxaan odhan doonaa imageka waxaad ku dartaa widthkiisana 50 nooga dhig si inooga yaraado sawirkeeni 50 buu noqday saasaa lagu yareeyey haddaynu ka weyneynayna waxaan odhan karnaa 75 oo kale okay xogaha kale aynu u baahanayna dee meeshan baynu kusoo qoran jirnay maxaynu u baahannahay hal mar kasta markaa xogtaad u baahatid ayaad ku salayn doontaa eventigaygu tusaale ahaan oo kale waxay lahayd mar kale titlekii baa dib soo celin doonaa haddaan u baahdo okay simple mar kasta variable-keenaynu dib ugu yeedhi doonaa kadibna waxaan odhan doonaa titlekii mar kale noo soo celi mar kalena waxaad noo soo celin doontaa tusaale ahaan oo kale event description-kii baan u baahanay eventiska markaan joogno waxaan u baahanay description waxa kale hadhow aynu ku dardari doonaa halkana register baynu isdiiwaangeli marka xogteeni sidanay noqotay xogtan oo dhan haddaynu u baahanay bartanka inay tagto waxaan samayn karnaa imagekeena gudihiisa hal dhif aynu ka furan karnaa dhiftana waxaan odhan doonaa text center qoraalka bartanka noo dhig kana waan soo qaadi doonaa imageka hoosteeda aynu ka xidhi doonaa it will be trick bay noqon laakiin maybe sawirkeeni bartan ku yimid inta kalena waxaan odhan doonaa waxaad samayn doontaa wax kastoo meesha noogu jira waxaad noo samayn text center okay xogteeni markaa saasay noqotay tii labaad haddaynu ku noqonnana sidii oo kale noqon doontaa okay marka just linkiskaas aynu isku xidhxidhaynaa